waayahay waa muuqaalkii labaad waxaa diyaarinaynaa receptiga dabcan asaga waa ku qasbanna hadda inaan sameyno headerka marka koowaad waxaa ka bilaabi doonaa sheekado dhan headerka taagsi ku horto waxyaabaha qaar waxaan rabaa inaan iska soo gaagaabiyo qaybtan oo dhan waxaan sameyn doonaa header iska saari doonaa arkaysaa waa iska soo qariyay midkan kalarka ka bedeli doonaa si wax qurux badan ay ugu soo baxaan marka inay la socodsidaa rajeynaya dabcan qaybtan waa iska soo qariyay sidoo kale waxaa sameyn doonaa intana sidoo kale hal mar inaan doorto kadibna aan haydan iska saaro ama hayd aan iska saaro arkaysaa waxaa ii soo baxday hadda warqad qaleel ah taas oo sidaa doona u isticmaali karo warqadaana rabaa haddaba inaan isticmaalo qaab noocee u isticmaalaya marka shaqada ugu horeysa aan qabanayo xitaa horta hore waxaa iska soo xirayaa qaybtan waxaa ka dhigi doonaa dabcan maya border keliya u sameynayaa haddaa ratid kan oo dhan kalarka waa ku bedeli kartaa oo hal kalar waa ka wada dhigi kartaa yacni waxaa laga yaabaa inaa u baahan tahay intaan oo kale inaad dooneyso inay isku kalar ay noqdaan tusaale ahaan waa sameyn kartaa haddaa doontidna hal kalar waa wada saaran kartaa markaa tusaale ahaan kalarka redka oo kala saartay kadib waxaa sameynaa oo isku soo dhaweynaa si meeshaas ay ugu noqoto headerka iyo waxay kala saaraysaa dabcan sa arkaysid xogteedii caadiga ahayd waxaa sameynaa headerka dabcan adii soo sameyso anuu ku gooyay qaybtaas isku day inaa headerka soo saarto tusaale ahaan intan oo kale loogadaadu waa inay ku fadhiisataa oo kale tusaale ahaan ku midabayna oo kale intaas oo kale waa in loogadii ay fadhiisataa intan waa in magacii uu fuulaa tusaale ahaan magaca iskuulkaaga waa inuu fuulaa qaybtaas yar iyadana kalar gooniya kuu saaraya istaatada iyo waxyaabahaasna waa in qaybtan ay u go'daa markaa numberka iyo waxyaabaha kale markaa loo baahan karo marka adaa xor u ah saa ka dhigan lahayd adaa yaqaano iyo wixii aad ku qoran lahayd dabcan intaa imaana haddaba shaqada ugu horeysa aan qabanayno waxay tahay finansiga xogta aan rabno inaan soo akhrino waa tan waxa ay leedahay sa arkaysid number iyo sidoo kale waxay leedahay receipt number serial number iyo receipt number anaga wax ku xisaabtami doonaa serial numberka ardayga uu leeyahay ama student ID saarto baxso meeshan waxaan sameyn doonaa marka xaggan inaan iraahdo student std id oo kale inaan iraahdo student id laga wado markaas kadibna halkan aan iraahdo tusaale ahaan intaan oo kale isku furto merge aan ku sameysto kadibna aan u sameeyo hoos inaan xariiq hoos u yeelo waa arkaysaa fiber oo la isticmaalayo keliya inay tahay intan inaa imaado haddana xaggan aan ku qorto date kadibna intan maxay toolay meeshan dateka aan ku qoray daartid inta waa ka dhigi kartaa muhiim maahan space au heshid inta ka dhiga haddaba kan ka tir dateka waxaa sameynaya intaan merging ku samey marka si space yar au heshid markaas kadibna waxaa sameydaa hoos color thick isaar border thick ah isaar leh marka inta haystid inta waxaa ku qoranaa receipt number inta ka dhiganaynaa sidoo kale receipt numberka waxaa la mid noqon doonaa kan idan kan kor kusoo jiidaynaa bas marka noocaas oo kale inoo noqon doontaa shaqada labaad ee qaban doono waxay tahay inaan inta ku qorno name oo ardayga magaciisa ah class fasalka uu dhigto waxaa kaloo qoranaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo telefoon numberkiisa telefoon tal isaga soo gaabi haddaa rabto maxaa kaloo qoranaynaa bisha lacagta uu bixinayo intii laga rabay v-giis inta uu ahaa dabcan v-ga marka inta uu bixiyo uu sheegto waxaa sameynaynaa meeshan khiyaano yar kusoo darsanaynaa horta kow inta column yar iigu soo dar column iigu soo dhex dar waxaa sameynaynaa marka mergiga kasoo qaad marka koowaad mergiga waxaa saartaa intan saar marka intan merge isu saar idan markaa kan waxaa sameysaa si meeshan ay ugu tirato kan koowaad un baas kusoo dheh kadib
waxa sameysaa kan hoos iska geli shaqo kalma inoo qabanayo dabcan wuxuu inoo qabanayaa labadan dhibcood oo kaliya labadan dhibcood marka uu qabto waxa sameynaynaa sidoo kale inaan raano dhaxda ku soo aad marka meeshaas aan ku soo aadin dib kan sidoo kale sameynayna waxa sameynayna hadaba intaan dhan ku koobiyeynayna saarkiisid marka ku koobiyay kadib waxa sameynaa sidoo kale inaan dhaxda ku soo aad raano waa arkaysaa Soomaa idan marka waxa sameynayaa intaan oo dhan isku xiri doonaa ina ila socodsidaa rajeynayaa horta kan bin isar bin markaa saarti kadib waxa sameynaynaa merge and center intaas dhan isku dheh idan marka kuwan ka hooseeya sidoo kale waxa sameynayaa border box oo hoos aan dabcan sii doonaa waana kana thick bottom border la yiraahdaa markaas kadib waxa sameynayaa oo ku soo jiidaya inta markaa haysto ka bacdi waxaan u baahanayaa v inta markaa v ga ka qoro kow midkan waa ka duwaya dabcan waa ka duwi doonaa qofkan maybe waxa noqon kartaa qaabka badan ugu duwi karnaa month ev oo kale na israacin labadanba merge ka qaad markaa ka qaadid ka bacdi waxa sameeydaa labadan horta hore waxa sameynaynaa waxa ka qaadanaa border box igan saaran saan oo kale ugu soo xir oo ka qaadnay oo arkaysaa sidoo kale qaybtan waa ka qaadanaa ayadana waa ka qaadanaa dabcan waa ka qaadantaa oo arkaysaa idan marka intan waa isku xireynaa kanna qacdidii aan kusoo koobiyeynaa dabcan intan waa isku xireynaa oo idin fahansiinaa danta ka leeyahay labadan marka horta kow marka hore waxa sameysanayaa ina ila socodsidaa rajeynayaa intan ina space u sameysto xoogaha yar zaaid ma weyneynayo intaasoo kale space intaasoo kale ina helo v marka inta ka dhiganaa ina ila socodsidaa rajeynayaa v meeshaana ka dhiganayaa waxaan sameynayaa isla ayada raacinaya labada dhibcood kadibna dhankan u sikaan dhihi doonaa ina ila socodsidaa rajeynayaa dhaxdan ku aadaan dhihi doonaa waa arkaysaa v markaa bixiyo meeshan paid ee noqonaya marka inta uu bixiyey paid inta uu bixiyey qofkan v waa intii laga rabay paidna waa intii uu bixiyey dabcan waxaa sameyn doonaa meeshan remarks oo warbixina ama resto sarata oo dhihi kartaa resto oo kale isaga soo gaabi restada marka horta kow waxaa sameynayaa inaan labadii dhibcood xaggan u raaciyo kadibna aan raacdo right align taga halkaas waa kaasa waayahay markaa inta haysano dabcan designkan dhan waxaa ka haray hal shay oo ah inaan kusoo darno qofka diiwaan gelinayo finance officerka waxaan sameynaynaa intaan marka hore isku furanaynaa mergena ka sameyn doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa finance officer oo bixin doonaa kadib space xoogaan socon doonaa kadibna laba dhibcood waxaan sameyn doonaa right align ka dhigi doonaa centerkan waa dhigi doonaa intaa kadib intaana isku furi doonaa haddana dabcan meeshan waxaa iska qoranaa si default ya magac qofka mas-uulka ka meeshaas uu caan ku yahay kale baanka macallin oo kale farta waa ka yara duwayaa horta marka koowaad border hoose u sameyno si waxyaabaha kale uga muuqato kadib waxaa sameynaynaa fartan waa ka duweynaa far xoogaa saxiix u yara dhiganta oo kale faraha dabcan qalqaloocaan raadsanaynaa maanka macallin tanba iska dheh aduu middaa heli kartid waa saaran kartaa waajib ma ahan inay fahmaysaa rajeynaya middaa artid waa saaran kartaa tanaa saartay hadda intaa kadib intaanoo dhan waxaa sameynayaa hal mar waa isla soo wada dooranayaa dabcan waxaa ka dhigi doonaa white background aa ka dhigi doonaa dabcan marka inta aan sameeyo kan haydan iska saaraya dabcan rowan mu baahni sababtoo ah haydan iga saar intana igu ekaataa rabaa hawsheeda oo dhan waayahay bal ila fiiriyo designkan maxaa ka haray
waxaa isleeyahay waxaa ka hartay meeshan yar inaan kusoo darno qayb yar oo caddaynaysa boonada nooca ay tahay invoice iyo waxyaabahaas oo kale dabcan waxaa rajeynayaa sidan oo kale inay noqonayso intaana rabaa inaan isku xiro markaas isugu xiraa waxaan sameynaa merge center aan ka dhigi doonaa merge and center kadib spacers u helna inta waxaa kusoo daraynaa hal row kadib kana dooranaynaa midab gaara u sameyn doonaa dabcan waxaa ka dhigayaa hadda midabka bluega tiqa ah meeshan waxaa ku qori doonaa money recept adu waxaa doonta waa ka dhigi kartaa money recept ayaan ka dhigayaa dabcan midabkeeda waxaa ka dhigaynaa cadaan white aan ka dhiganaynaa hadduu ilaahay ka dhacdo noqdo farta waxaan ka dhiganaynaa montserrat mid la yiraahdo boldna waa ka dhigaynaa sidoo kale waaweynna waan soo weyneynaynaa xoogaha dhexda iigu soo aadna waan dhahaynaa intaa markaa haysto kadib maxaa ii haray balaa qiyaasno waxaa ii hartay labadan in space ugu filan aan u helo wax yar soo yarsikinaya waa arkaysaa waa soo sikiyey hadda designka boonada ardayga ugu talagal in uu gooyo waa ii diyaarsan tahay waliba si nadiif ah kaliya waxayno dhiman inaan xogta ardayga ka soo akhrino halkan inaan ka soo akhrino noo dhiman sidoo kale meeshan wax ka dhiman ayaa jira date oo taariikhda ayaa ka dhiman waayo receptigan marka aan goynayno waa in taariikhda qofka lacagta uu bixiyo markaa meesha ay ku xusan waayahay halkan waa ku xiri karnaa sida caadiga day to day oo ah taariikhda maanta aan marayna anagoo function today la isticmaalayno functionkan anagoo isticmaalayno waa ku xiri karnaa laakiin hal cilada meeshan ka dhalanaysa mar walba oo meeshan la soo furo taariikhda marka la joogay soo qabsanaysa idan marka taana waa laga qurxan yahay waxa laga yaabaa ardaygan taariikh hebel inuu lacag bixiyay ardayga kalena taariikh hebel kale uu bixiyay marka si loo kala cadeeyo waxa sameynaynaa dabcan meeshan month v-ga meesha ka horeysa waxa ku soo darsanaynaa hal column waxa u baxsanaynaa date ama taariikh labada ka awoodid u baxso date u bixinaynaa sidoo kale functionka inta mar labaad ku isticmaali karnaa laakiin culays ayadana ka imaanay mar walba functionka aad isticmaasho todayga ah maalinta aad rabtid xaggan soo furtid taariikhda la joogo ku soo qabana idan marka taas uga fogaato taariikhda marka la joogana u heshoodona gacanta ka gelinayna halkan oo tirehebel aadan dhihin waxaas mesela controlka iyo semicolonka isla qabo keyboardkan oo ku soo saaray waa fahantaa rajeynaya kadib waxa sameynaa qaybtan ayaan sidan u soo jiideynaa dabcan haddana control iyo semicolon aan dhahaynaa labadooda isku dareynaa markaas si aysan isu bedelin markaa hadda haddii aan kan keligii soo qaban lahaa taariikh 567 ay tagi lahayd markaa laba xabaa la samaystaa kadib labadooda la isku daraa oo lagu jiidaa markaa isma bedelayso meesha oo taariikhda caadiga markaa qaadanaya inay fahantaa rajeynaya idan markaa hadda wuu inoo diyaarsan yahay design-keeni kaliya waxaa inoo dhiman inaan xogtii aan ka dalbano retrieval aan kaga sameyno tableka inta yaala tablekan markii ardayga ID-giisa inta yaala la geliyo in ardayga xogtiisa inta kasoo bixi karto ardaygaas magaciisa fasalka uu dhigto taleefanka laga heli karo bisha lacagta uu bixinayo lacagta uu bixiyo inta ay tahay yacni lacagta laga rabay inta ay tahay intuu bixiyo inta ay tahay rasta haday jirtana wixii lagu leeyahay ama wixii inaga nagu yeesho markaa kadibna dabcan hore usii daabici kartaa qaybtanna dabcan adaa kuu daayay insha allah waa fahmaysaa rajeynaya waana soo samayn karaysaa waa qaybtii loogu talagalay iskuulka warbixintiisa waaye loogadii iyo magacii iyo nambaradii iyo wixii laga heli kara iskuulka markaa qaybtan yaraa loogu talagalay adaana soo samaysan kartid insha allah fideoga xiga iyo sidaan markaa xogta u dalban lahayn anagoo isticmaali doonaa qaab fudud oo loo yaqaano index iyo match oo isla socdo aada u mahadsantihiin